Waa mar kale iyo barnaamijkeena Talo iyo Tusaale ee noo soo socdo waayadan maalin walba oo Jimco ah. Maantana waa qaybtii aabayaasha weliba markii aabayaasha reerka uu burburo la kala tago. Hadda qaybtii u dambeysay waxaan kusoo qaatay hooyooyinka sida ugu wanaagsan ay caruurtooda ay ula macaamili karaan ula haysan karaan. Haddana waa aabayaasha qaybtii ahayd. Kusoo dhawaada ayaan idin leeyahay. Familka markii la kala tago waxyaalo badan oo intii la isla joogayna mudneed in la isla wado haddii la kala tagana ay tahay in la sii taxadaro. Ayadana aan ku qaatay labadan qaybood labada waalid. Marka insha Allah kusoo dhawaada qaybtaana waa qaybtii ragga ku socotay. Kusoo dhawaada idin leeyahay. Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Cafiifa iyo mar kale channelkeena Cafiifa Channel. Kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladii waa idin salaamay. Jimco mubaarak ayaa idin leeyahay, Jimco kariim. Ilaahay maalinta Jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda ha noo waafajiyo dhammaanteen meel walba oo aan joogno. Ilaahayna inteena xanuunsan ha caafiyo, intii dhimatayna ha u naxariisto, intii dhibaatooyin kala haystaan Ilaahay ha ka dulqaado. Dhammaanna Ilaahay dadkeena Soomaaliyeed meel walba ay joogaan cimri dheer iyo caafimaad iyo wanaag ha ku siiyo iyo wax walba oo khayr ah. Ilaahayna musiibooyinka adduunka socdo oo ummadda islaamka oo dhan ku socdana Ilaahay ha naga dulqaado guud ahaan. Ilaahayna qulubtooda ha iswaafajiyo ummadda islaamka meel walba ay joogaan. Kusoo dhawaada maanta waa barnaamijkeeni Talo iyo Tusaale oo noo soo socda baryahan. Waan kusoo qaadanaya arrimaha qoyska, aas-aaska siduu kusoo wanaagsanaan karo haddii la kala tago oo ay danta iyo duruuftu keento. sidii maanta labada waalid ay ula macaamili lahaayeen caruurtooda. Hadda qaybtii u dambeysay hooyooyinkan kusoo qaatay. Maantana qaybtan waa qaybtii aabayaasha. Aabayaasha khusaysaa ku socotaa. Aabayaasha waxaan leeyahay oo aan intii fikirkayga aan kula dardaarmayaa maadaama qoyskii burburay la kala tegay hooyadii meesha kaligeed ay tahay badi siiba qurbaha aan ka hadlaya kuwa jooga hadda ay hooyadii badana ay kusoo hartay ciyaalka ayadii hooyadii ay isku noqdaan. Marka caruurta meesha waxaa la rabaa inaa idinkana aad meesha ka baxdeen oo aadan guriga ka tagteen oo kala tag u yimiday in aadan ilmihii tusina waxyaalo xumaan ah oo aadan idinka xataa aadan tusina jaceylkii waalidnimo qaybtii aabanimada oo aad aabaha ahaydeen iyo qaybta aad ugu jirteen in aad wanaagii aad shalay markaad joogtay aad kula joogtay aa usii muujisid oo usii kordhisid waliba hooyada xaggeedan aad ka tustid jacayl badan oo hooyadiis aad ku waanisid oo inay hooyo wanaagsan tahay oo inay hooyo ka fiican aysan jirin aad ugu sheekayso oo cunuga si uu si farxad ah ku noolaado. Laakiin haddaad cariiri dhinaca ka geliso oo u hadal xumayso asagana meeshaas uu ku dhumaaya adigoo ayadii la ficiltamaayo hooyadii. Saas sida badan lagu arkay ragga. Marka intii wanaagsan oo marka hore gurigooda ku wanaagsaneed wayba wanaagsan tahay wayna sii wadaan. Laakiin waxaa soo badata waayadan ragga qaar haddii la kala tagay xaaska ay kala tagaan inay ciyaalkana meeshaas ay ku dayacaan oo hadday noqon lahayd ka warqabid hadday noqon lahayd inay dhaqaaleeyaan inay xanaaneeyaan inay wax taraan intiiba ka goosanayo xiriirkii oo dhan. Kii kusoo noqdana uu dhibaato kula soo noqonayo oo isaga iyo yani ilmihii iyo hooyadii uu ka dhex shaqaynayo oo xumaan ugu sheekaynayo si ay isu qabtaan hooyadii iyo caruurtii. Asagana dan uma ahan ciyaalkan haddii ay soo koraan oo soo barbaaraan maxay caruurtaada adigay kuu korayaan kuu soo barbaarayaan haddii wax wanaagsan noqdaan adigay kuu wanaagsanaadeen labadiinaba waa idin wanaagsanaanayaan oo waalidkii baa tihiin. Laakiin haddaad xumaan mar walba aad tusto oo aad hooyadii aad ku sii dirto oo inay hooyo xun tahay oo hooyo fiican aysan ahaynin aad ugu sheekayso asagana meeshaas uu ku dhumayaa. Markaas ay ka baxayaan khadka ilmihii. Marka waxaa wanaagsan in caruurta wax wanaagsan loogu tago oo loogu hadlo looga sheekeeyo. Haddii inta tiro ma lahan inta xataa soo kortay oo soo weynaatay oo maanta ka hadlayo oo ka sheekeynaa taariikhaha oo kule maanta aabayaasas ila dhaqmay oo saas ii xumeeyay markay hooyo kala tageen dib iguma soo noqon. Marka waxaan wax fiican ma ahan. Taasaan aabayaasha aan ayagana xasuusinaya inay saa uga warqabaan caruurtooda ay xanaaneystaan oo ay daryeelaan
xataa hadallada macaan hadduusan waxsiin xataa hadallada xiriirka fiican uu tuso waalidkiis uu macaaneeyo uu wax fiican ka tuso uusan marnaba xumaan ka tusin waxaa laga yaabaa hadduu maanta uu xumaan uu u sheekeeyo mar walbo inuu meesha ilmihii ka baxaan hooyadii haddii xumaan laga tusay qadka kaba baxaba iyadana ka tago asagana uusan jirin labada dhex ay ku dhumaan ciyaalka saasaa dhacda sida badan marka in laga warhaayo caruurta oo aan la dayicina wanaagsan oo meeshaan weliba la joogo kuma sii jirto qurbahaan hadday labadiinaba idin waayaan waad ogtihiin meesha u dambeynayso ay u gacan galayaan ilaahayna waxaan ka baryaa inuu meel walbo ay joogaan caruurta uu noo xafido noo daryeelo annagana waxaan kaga baahan yahay ka waalid ahaan in aan wanaaga ka shaqeyno oo aan la saaxiibno oo wanaaga tusno caruurta mar walba in lala saaxiibo lala hadlo ay aada u jecel yihiin ay u daneeyaan hadaad la saaxiibto oo adigana aad wax walbo aad wanaag u sheegto ayagana markaa wixii ay soo dareemaan oo ama ay kala kulmaan meelaha kale wixii xumaan oo la kulmaan si aad uga waaniso way kula wadaagayaan way kuu sheeganayaan wixii wanaag aad u sheegto way kaa qaadanayaan marka ficiltanka in la joojiyo aan labada waalid kula dardaarmayaa aabayaasha iyo hooyooyinkana hore iyagana aan ugula soo dardaarmay barnaamijkan ka horeeyay kanna waa aabayaasha dhammaan guud ahaanna waa idinkala talinaya idinkula dardaarmaya naftiina iyo nafteydaba inaan wanaag laga wada shaqeeyo oo aan ficiltankaas la ficiltamaayo oo aan dan aan u ahayn oo meeshaas ay ku dhumayaan caruurtii aan laga shaqeynin oo ku adkeynta mar walba iska soo noqnoqoto laga digtoonaado ragga saas ku dhaqman waa iska badan yihiin dumarka haddii xataa wadankii tahay waa lala socdaa sida in loola macaamili jiray markii la kala tago intii wanaagsan wayba wanaagsan tahay in hadday kala tagaan hooyada ilmaheed ku xanaanay ku biilo way jirtay in ay kaba wadato u diidana way jirtay oo familkooda iyo qoyskooda dib ugu ceshta ciyaalkii oo dhaha maba la kulmayso hooyadii meesha sida lagu kala tegay waa ilmihii laga watay oo aan dib loogu soo celin oo loo ogolaanin oo haddii xataa hooyo meel degan noqoto oo reer yeelato xataa aan loo ogolaanin oo weliba ficiltanka saa'idka ah aad sii arkaysa mar laleeyahay mar dambe hadday tiraahdo caruurteyda qaar ka mid aan u baahanahay in xataa la isiiyo haddaan la ii ogolaan kulligood waxaad arkaysaa markay reer yeelato kale in lala sii ficiltamo ee weliba haddii caruurteeda ay isku jireen wiilal iyo gabdho ahaayeen loo diido gabdhihii oo la yiraahdo wiilashoo kale tusaale ama wiilkan weyn ama labadan ha loo geeyo ama saddexdan si iyadaba looga dhigo inay culays ku noqonayso oo ciriiri lagu gelinayo iyada waa hooyo wax dhashay wiil iyo gabar intii la siiyo way rabtaa way ku faraxsan tahay laakiin waxaad arkaysaa ficiltan meesha in laga wado laleeyahay reerkeeda si lagu dumiyo hala saaray in ciyaalkeeda lagu soo daayo wiilal haddana lagu soo daayo ay la ficiltamaan ninka ay soo guursatay ficiltanka saasna uu iska jiraa oo xaasidnimada ku sal leh oo gabadhii mar walba hooyada ay isku dhawaashaha isku lahaayeen oo hooyanimada inay idan gabadheeda wax badan ay ka qaadato oo fikrad ah ay ka barato hooyadan ay u baahneed gabadheeda taasoo kale waxaad arkaysaa in loo diidayo oo haddana laleeyahay wiilka ha looga dhigo wax ciriiri gelinayo laakiin iyada marna wax ciriiri gelinayo ma ahan waa ciyaalkeeda kulli way rabtaa caruurteeda marka dhammaan waxaan kala dardaarmayaa kulana talinayaa dhammaan aabayaasha Soomaaliyeed inay khayrka iyo wanaag ka shaqeeyaan si ay ugu wanaagsanaadaan caruurtooda oo heer ugu gaaraan oo adduunya aqrab kuwa wax tara ay u noqdaan insha Allah dhammaantiin saas aynu kula dardaarmayaa wanaag in laga shaqeeyo oo wax fiican la isfaro oo la iskula socdo si walaalnimo ah loo wada korsado awlaada ilaahayna naga dhigo anagana waalid u samafalo caruurtooda ayagana biri wax tara adduunya aqra ayagana ilaahay nooga dhigo insha Allah dhammaanteen khayr ayaan idin rajeynayaa meel walba aad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu